بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار وعشر نمر هي سورة الإرادة. سورة الانفطار وسورة مكية وهي مكة waxaa looga jeedaa marka lagu leeyahay quraanku waa maki nabiga waqtigii uu joogay magaalada Maka ilaa waqtigii uu ku sii socday Madiina oo soo dego Maki baa la yiraahdaa. wixii Madiina markuu tagay soo deganay Madiina baa la yiraahdaa. suuradan marka suuratul infitar la yiraahdo nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo ka hadlaya wuxuu yiri ruuxii ay farax gelinayso inuu ogaado maalinta qiyaama xaalkeedu sida uu yahay saddexdan suuradood ha fiiriyo: suuratul kuwira iyo suuratul infitar iyo suuradda ka dambaysa maaragtay suuratul mutaffifin ka dambaysa oo ismaa shaq. saddexdaas suuradood waxay ka hadlayaan qiyaamada ka hadlayaan arrinta qiyaamada si aad iyo aad u taabanayaan maaragtay isbeddelka weyn oo caalamka ku dhacaya. suuradan marka ayada gooni ahaan waxyaalahay ka hadlayso way badan yihiin, laakiin waxaa ka mid ah qiyaamada markii ay dhacayso in isbeddel uu imaanayo. isbeddelkaas markuu yimaado ruux walba wixii adduunyada uu soo hormarsaday iyo wixii uu ka soo kacayba waa la ogeysiinayaa, wuuna ogaanayaa. waxay kaloo suuraddu ka hadlaysaa insaanku inuu yahay mid had iyo goor ku kalsoon nicmada ilaahay oo galab iyo subax iyo habeen iyo fiid mar walba ku socota. nicmadaas ayuu ku kalsoon yahay oo uga dareensanaa nicmadaasi axadkii haysiiyey nicmadan oo u sakhiray asaga inuu axadkaa u mahad celiyo ma oga. wuu ku kalsoon yahay, allahaas ku kalsoon yahay. marka suuraddu arrintaasna axadkan insaanka oo kalsoon oo garan waaye nicmada ilaahay uu siiyey ruuxaasna way ka hadlaysaa. waxay kaloo suuraddu ka hadlaysaa inay kuwaasi beensan yihiin yowmul qiyaamaha diidan yihiinba oo ay yihiin kuwa aan qarsanay yowmul qiyaama. waxay kaloo suuraddu ka hadlaysaa in malaa'ig ay jirto ruux walba oo dad insaanka ka mid ah malaa'ig inay xifdinayso oo acmaashiisa ilaalinayso oo qorayso oo ruuxu wax khayr iyo shar wax alla wuxuu sameeyo malaa'ig ay qorayso. ruux iska socdaa ma jiro maaragta, ruux walbaaba waa lala socdaa, waxa uu samaynayo waa la ogyahay. inuu saa isku fahmaa la rabaa maaragta. markaan ka hor waan soo sheegnay waan ku celinayna, waxaan ugu celinaynaa qofka qalbigiisa inay ku dirto. nin shiikha oo ardadiisa rabay inuu rabeeyo wuxuu sheego dad fiican oo iimaan la inay noqdaan doonaya ayaa wuxuu yidhi ardadiisa wuxuu ku yidhi waxaan idinka rabaa nin walba shimbirkaan inuu qaado oo uu soo gowraco oo meesha uu ku soo gowracayana aan lala joogin, asaga keligiis uu noqdo. mid walba shimbirkii u qaaday uu la tegey, hal mida maahan mid intii kale dadka inta iska firfiriyeen ay soo gowraceen. mid ayaga ka mid yahay asagoo shimbirkii wadu soo celiyey wuxuu yidhi adiga maxaa usoo celiyo, maxaa usoo gowrac wada shimbirkaan? wuxuu yidhi aniga hadda meel cidlaha haddii kusoo gowrac oo wax jooga la arag, meel walba ilaahay baa jooga. haddaan gurigaan la gala allaa jooga, haddaan kan gala ilaahay baa jooga. marka qofku markii uu sidaas qalbigii wuxuu ogaaday ruuxa wax fahmay inuu kan kaliya yahay. ruux inuu dareemaa la rabaa keligiis uusan ahayn, mar walba meel alla meeshuu tago inuu ilaahay la joogo. malaa'ig inay garbihiisa saaran tahay oo la shaqaynayso oo khayr iyo shar wuxuu sameeyo laga qorayo. hadduu qofku sidaas uu iimaankiisu qalbigiisa uu raasik ku noqdo uu ku dhego macnaha, ruuxaasi wuxuu noqonayaa ruux ilaahay ka cabsada oo ilaahay ku xiran buu noqonaya. laakiin haddaad dadka iska fiirfiiriso, geesaha inta fiirfiiriso sidaas wax kuu jeeda lama arko, hadba khalad iska gasho, xaggaa iska fiirso khalad baa iska gasho, aw ilaahay weynaa ku abuuray aw malaa'igtii maaragtay xifdinaysay.
marka malaa'ig noocaasi inay jirto suuraddu way ka hadlaysaa. waxay kaloo suuraddu ka hadlaysaa dadku labadii qaybood u yahay in labadii qaybood maaragtay fariiqun fil janna wa fariiqun fis saciir la yiri inay suuraddu ku sugan tahay oo dadna ay aadi doonaan wadadii ficneed iyo jannadii dadna meelkan ay aadi doonaan. waxay suuraddu ku soo gabagabayn doontaa qiyaamada arrinteedu inay weyn tahay oo maalintaas qiyaamo naf hana kartaa naf wax u qaban karna aysan jirin. adduunyada markii la joogo haddii aad adigu nin raga tahay raganimada lagu meel mara, haddii xoolo aleeda xoolahaaga lagu meel mara, haddii qaraabo aleeda iyo cashiro adag aa ka dhalatay cashirada laga yaaba inay wax ku taraan, laakiin maalintaas wax isma jiraan. raganimo aleeda wax ma tarayso, qabiil maantaas ma jiro. qof walbaaba ilmahaaga baa ka cararaysaa iyo naagtaada asal ay maanta kugu dhagan oo ku yiraahdeen waxaan ku leeyahay ruux walba ruuxu ujeedu ka cararaya marka maalintaasi inaysan naf waxba u qaban karin alla noo sheegaya. suurad saasaa lagu soo dhamaystiray. bismillaahi araxmaani araxiim. waxaan isku dayahayaa inaan laba goor mariyo ku noqon. marka hore cagta waa marinaya, carabkaan marinaya si dad badan ay maaragtay u fahmaan waxaan sheegayo. bismillaahi ilaahay ismkiisi baan ka bilaabayaa, kitaabkayga ku bilaabaya. allihii arraxmaani naxariisanayay, naxariis caama ku naxariisanayay, allihii naxariis khaasa ku naxariisanayay. oo midda caamka ahna waxaa weeye muslim iyo mushrik bay gaaraysa, midda khaaska ahna waa midda mu'miniinta ilaahay maalinta qiyaame uu ugu talagalay. ida samaau infadarat, alla wuxuu leeyahay ida samaau samadii infadarat hadday dildilaacdo, samadan ujeeda weyne badana hadday dildilaacdo. وإذا الكواكب حدقينا انتثرت أي فردان ومشي كجرة كسر فردان. وإذا البحار بضيهنا فجرت هدي الله يسكفره، هدي الله يسكفره من دون مدة كلام غفره. وهل بضها أي نقدان. وإذا القبور قبور تينا بعثرت لسوفها wixii ku jiray banaanka la soo dhigo. calimad nafsu nafi way ogaanaysaa maa khadamad waxay hormarsatay oo akharad ay dib dhigtay way ogaanaysaa naf walba. yaa ayuha alinsaanu insaankaanow maa garaka maxaa ku kadiyey لربك ربك محبوك لي الكريم الدغسي لها الذي الله سو خلقك وأبوري وفسواك كيالي مد سليم الله ما عرفت وحده وأقبت الأرك بناك كاري فسواك معناه حوي أديك وحده وأقبت بناك كاري معناها أضل لواك قرنين أضل قعمها كقرنين adigoo maaragtay xibiri kaa maqan tahay adoo aan ahayn sidaas buu dadka inta badan sidaas ku soo saaray alle. fasawaaka macna adoo dhan buu alle ku soo saaray. facadalaka allihii ku simay ibnahaaga sinay fiir lugahaaga mid ka dheer lama arko, gacmahaaga mid ka dheer lama arko, indhahaaga mid walba mid kale la eg tahay. laba indhood fiir, laba dhagood fiir, laba gacmood fiir, laba lugood fiir, mid walba mid kale laagta. وفسواك وفعدلك ومسلك أكيسي مدي هرانا محي أهيد أديغو صليمة بعض صباح وقار مغني. وفسواك فعدلك أنا وحوي أديغو ماركتي سمن وحمنها وسميه وإلهي وصوصار وقابوري في أي سورة مدي قدانه في أي سورة وما شاء قدانه وركبك إلهي إسكا كوري أما هو أبوري بدأ تنتواني كنا هو إسكا كوري في أي سورة ما شاء سورة إلهي قدانه وركبك إلهي إسكا كوري أما هو أبوري هدو دور دمير مكادي كري هدو دور ساعة مكادي كري في سورة من آدم هذا الغاني في أي سورة تيكا أو ما شاء قدانه يركبك إلهي إسكا كوري أما كا أبوري هو أبوري بعدي كنا
tarkiibku macnaha abuuritaanka weeye waa abuuray kala ka joog kadsoomidda aad kalsoon tahay ka joog baa lagu leeyahay insaano bal iska badaa inay kalsoomidda iska daayaan tukadibuuna waxay beeninayaan bidiini maalintii abaalmarinta iyo jazahi diidayn wa inna calaykum korkiinana waxaa ahaaday laxaafidiina malaa'ig idin xifdinaysa acmaashiina wax alla waxaa samaysaan xifdinaysa ahaatay kiraaman wan wanaagsan malaa'igtaas kuwa maahan adiga waxaadan qabin kugu dhejinaya kaatibiin waa kuwa wax qoraya yaclamuuna waxay ogyihiin maa tafcaluuna waxaad falaysaan si ku ogyihiin waan ku imaan doona waxaad falaysaa way ogyihiin malaa'igtaas ina alabraara kuwa baarayaalkaa dadkii la fii naciimin barwaaqi ku sugan yihiin wa ina alfujaara kuwa xumxumina la fii jaxiimin jaxiime ayay ku jiraan yaslownahaa way gelayaan yowma diini yowma alqiyaamaha naartaas jaxiimadaa gelayaan wamaa hum iyagu ma ahan canhaa naarti jaxiimada ahayd biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya ma ahan ama ka baxaya naartaas kuwa ka baxaya ama ka maqnaanaya ma ahan oo adduunyada haddii hadda meel dhib ka dhaco inaad ka maqnaataa laga yaaba meeshaas maya meeshaan waa la wada joogaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamed maa yowmuddiin yowmalqiyaama waxa uu yahay uma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiin yowmalqiyaama waxa uu yahay yowma maalin wey waa lagu fasiray laa tamliku nafsu nafi aysan hananayn aysan awoodin macnaha linafsi naf kale shay-an shayna aysan u awoodin nafi naf waxba uma samayn kara maalintaas walamru amarku yowmaidin maalintaas lilahi ilaahay baa iskale bismi illaahi araxmaani araxiim ida samaa infadar allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa markii isbeddelku ku yimaado samada xidiguhuna ay maaragtay daataan baduhuna isku furmaan abuurtiina bannaanka la soo dhigo naf waliba wixii adduunyada ay soo horumarsatay iyo wixii gadaalkeeda ka soo kacday way la kulmaysaa maxaaba harayba hadda haddii adduunkii isbedelay adiga say u joogaysaa marka adduunyahada marka haddii isbedel ku yimid bas weeye samadii lagu yidhi maaragtay sumarkii basara ka ratay maxaa ahayd كرد ينقلب إليك المبحث عن حكوري فارجع المسار هل ترى من فضول السماء ما وجه ده واحد الدلاع ما وجه ده الويري ما أنت وجه الدلاع إذا السماء دي انفطرت هذا الدلاع انشقت انفطرت وأسلمت وحال يقول هذه السماء دي الدلاع هي وإذا الكواكب اللي هنا انتثرت الكفر هذا ماشي وروح الله ونجي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فينوسيها يا مارك السماء الوقر دي الدمحات فينوس هدي waxa loo shidaa markii meesha laga rabo in la sii joogo moogta halkaas oo lama damiyo markii laga tagay adduunyada nalkeedii waa la daminayaa bes waay xididii marka meesha maxay ka qabanayaan waa inay firdhadaan meesha dadka ka soo firdhadaan wa idal bihaaru bidhiina fujiran haddii la isku furo badaha toddobada badood oo la sheego bad waliba badda kale ku darsanaysa mid walba midda kale ku darsanaysa biyihii macaanaa iyo kuwii xaraaraa waa isku darsoomayaan awal maxaa loo kala soocahay waxaa weeye kuwa shaqo gooniyay lahaayeen laakiin shaqadii waa soo dhammaatay marka shaqadii qabanayeen way soo dhammaatay wa ida alqubuuru qubuurtiina bucfirad haddii lasoo faago lasoo bixiyo meytadii bannaanka laga soo dhigo calimad way ogaanaysaa nafsu nafi maa qadamad waxay hormarsatay way ogaanaysaa oo waa khalad ay gadaal marsatay waxaa lagu fasiraa naftu markay dhimanayso waxay hormarsatay weeye maaragta waxay camalka ay qaban jirtay adduunyada intay joogto waxay camal soo samaysatay maa qadamad baa lagu sheegaa wa akharadna waxaa lagu sheegaa ruuxu wax wanaagsan buu ka tegay maaragta
علمي ضد بري dadkii uu baray baa dad sii baraya waa cilmigii gadaal quraan baa dad bartay qofkii quraanka bartay qof kale uu baray mid kale uu sii baray mid kale uu sii baray sidaas ay marka isku daba joogaan waa akhrad way marka dhamatay ka bacdi shaqa kaas oo daba socota masaajid baa dhistay waa iska dhimatay adiga masaajidka salaada lagu tukanaya cibaadad baa lagu haya intaas waa akhrad way waa wixii ka gadaal maray amal adiga aad bilowday oo shaqadiisa ka daba socoto way ولذا أساسي آد وفي عنتاي قف كده دار حكاهري كره إنه يراد وحخير وكهري كره بالسكوت مساجد دارك طلع صحيح قدرة منطقنا ضد قرآن كبر حتى هذه قرآن كبر واحد سوين كنا معلم ما سوين كنا معلم كاسين كنا خرش ودي كنا هي ضد قرآن كبر هذا ولا جيا بقى إن أجل كسر إلى أزور العاب وشقين يعني سو waxa laga yaabaa mid ka badan sidoo wax waa helay laakiin mid uu helay mid ka badan adaaba maaragta kharashka bixinay marka way fiicantaa qofku wax ka dambeeya inuu samaysto oo gadaalkiisa ka sii hormar marka waxay yiraahdeen khayrkii ay samaysan jirtay iyo markay dhimantay wixii wanaag oo ay soo samaysay asaas ugu sheegay waxa kale oo lagu sheegay ma qadamadu waxay hormarsatay iyo aakhirad wixii ay xumaana oo samaysana waa lagu sheegaa marka laakiin sida fiican waxa weeye ruuxu wixii intuu joogay camal uu sameeyay waa ma qadamadu ruuxu uu helay uu la kulmaya camalkaas uu ogaanaya iyo aakhir wixii hadhow ka bacdi wanaaga oo intuu abuuray isagu markuu dhintay ka bacdi la soo sameeyay ajar buu helaya أنا كتاب عند أنفسنا ضد نوشة أنت قرآن كبران هاي قرآن كأقرأ نيم بأوشة ما قرأت أنت إذا نروح على غيره أنا أوشة غير إن عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأدت القرآن كذا صابر أي مط قفل أرك قف كبري قفل أرك قف كبري أسوي لي بس شقينا يا جماعة ومع ذلك لقينا أصحابنا ما يردهم هاي dad badan dadkii ka sarrifmay ma garad oo waxa laga yaabaa quraanka inuu soo gaaray markii la fiiriyo boqolaal qof uu soo dhiyaawo kumaan oo kale kunkaas mid ajarka laga nusqaaminayo laba mid walba ba ajarkii weelay marka calima nafsu bima qaddamat wa akharat markii la yiri suurad kalena waa tii ahayd inuu baul insaan bima qaddama wa akhar إنسان في واحد على واحد رأيه ومهرم صدق يقول جدال مني وإسلام عليه مرت ويجاني سوا الله شيء هي يجاني سوا إسلام عليه مركب الله شيء ويجاني يا مركب ليش سبحانه وصباحي هدي عالم يسبدله روحه يسوع سمين جري إنه يجاني سو ما في عنا مركب هدي أريدتس أرميسته إلى وقرانك إلهي وحرميسنت هاي وحوراجه وبريء أوجاته إن هرمسته وهديك وقتك أحسته كفايته وقتك متك كل جهة على كفايته يكون بي وسوق بي مت كان أشوفت هذا المساجد ذا كجرته نيدا إن في عنا تلقى بالغافة أنت أفرده إن عبادة سنة تلقاها مقرتين markiisa intaas ay ku jirto waa maxsuubay u tahay waa ku qoran ilaahay ka dulminaya adoonka waxa uu sameeyay waa loo qoray marka maxaa laga rabaa niyad fiican inaad ku timaado dhageysato quraanka meesha lagu aqrinayo masaajidka fadhiso salaada u dhowrato inta salaada dhowranayso masaajidka ku jirto ajar baa ku socda masaajidka markaa soo galayso guriga iska galhaa macnaheedu ka noqon ina beedka ilaahay ku cibaadaysanayso u soo gal ina kitaab ku dhageysanayso u soo gal ina salaad soo galayso u soo gal inta marka u soo gasho ajar baa ku socda wuxuu kaaga mid noqonayaa calima nafsu ma qaddamat wa akharat uu biiraya naf walba waa ogaanaysa waxay soo hormarsatay ilaahu masaajid baan joogay salaad baan ku dhowranayay kitaab baan dhageysanayay cibaadada meesha ku joogay ilaahay markaa dulminaya asnada waa maya marka ruux waxaa rabaa saacadaha uu joogo oo adduunyada uu joogo saacad walba wax khayr inuu kula yimaado inta hadda dariiqa iska sii marayso waa iska dhigi karnaa subxaanallah qalbigu waa ka dhigi karnaa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah
hadhow adiga oo meeshaas dariiqaas la sii marayo waa barnaamijka kuu soo baxaya rag waa subxaanallah meeshaa ku haytay marna lagaa dayici maayo maxaa marka lagaa rabaa qalbigaagu in mar walba had iyo goor inuu heegan yahay oo waxaas ay ku jiraan adkaarta iyo wanaagga iyo khayrka mar walba ay ku jiraan maxaa yeele waqtigaagu waa iska yiri adaaba mar dhow adduunkaa ka tegi doona adiga oo khayr badan wata tag laakiin adoo sharbu wata badan ha tegin maxaa yeelay caawa waxaad ogaatay naf waliba waxay hormarsatay oo khayra ah shara way arkaysa way ogaanaysaa waa lagu soo celinaya maaragta soo suuratul in badan baa quraan ku soo marnay soo maana soo marin faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara wixii khayra oo yar uu qofkii sameeya oo wanaag uu arkaya wixii shar oo asamaysa waad arkaysaa waa lagu soo celinaya bal qalbigaagu inuu ku dhago arrintaas intaa markii laga soo baxay oo naloo sheegay caalamkan hadduu isbedelo naf walba camalkeedii inay arkayso insaanka weli waa qalbigiisu waa qaafid waay hawaa insaanku wuxuu shabaha markaa fiirisa dadka miyiga jawaa yaqaani xoolaha oo kale ariga oo kale arigu haddaa arki jirta arigu marku baadiye joogo oo dhurwaa kusoo boodo neefu kala hara dhalinyarada fiirsata mataqaanaa xayawaanaadka maaragtay dhurwaagu bahalka uu cunayo libaax ku godayo waa aragtay neef wuxuu kala haraya midku uga dhagaya nab markuu uga dhago cabaara dadaysa ordaysa bas daaqi hore ka bilaabasa annaga waa sidoo kale waxaa waaye ruux naga mida waxaan leeyahay qofka masaajidka lagula tukan jiray wadaadka ma arki jirta halkaa ku tukan jira haa waa dhintay islaanta iblahayd waa dhimatay loo duceeyey anay oogaa hataa qofka garanayso qalbiga qilq inaa ka tiraa laga yaabo annaga qalbigii waa adkaaday waxaa laga yaabaa waxba inu ma dhintay haa bas waa isaga dhintay ciddiisaa tabisa marka qofkaasi waa qof wixii ilaahay u sheegayay aan qalbigiisu la shaqaynayn waa qof kadsoon way oo nicmada ilaahay ku kadsoon way marka ruuxaas ilaahay uu nicmeeyey oo abuuray oo isaga oo xibnihiisu dhanyihiin uu soo saaray oo xibnihiisu sirihii soo saaray oo suuro wanaagsan suuro bini aadam ilaahay uu ka dhigay ayaa waxaa la leeyahay war maxaa ku kadiyey baa la leeyahay oo nicmada ilaahay u garan wey yaa ayuha alinsaanu insaanow culimada qaar waxay sheegaan dadkaa loo jeedaa kuwii mushrikiinta oo nabiga waqtigiisa jooga kuwa kamid ahay baa insaanka looga jeeda laakiin maya dadkoo dhan waayo adiga waa ku jirta adiga inta isfiirisid nicmada ilaahay oo kugu socota maka shukri celisaa waa yiriya qofka shukri celiya nicmada ilaahay uu ku siinayo inta badan xataa maba ogin fiiri aryadaas neefta kaa soo baxaysa hadduu ilaahay kugu celiya ka hor jiq kugu tiraa meel aa fadhiisato meelaysa neefta gadaal ka baxaysa haddii la xiro ka hor dhag lagaa siiyo adduunka dhisaa u joogta adkaanaysa ishaan kaliya haddii dhagax yar kaa galo ama saxare warqad duulaysa kaaga dhacda bisow habeenkii markaa isku saaxta afka oo kala qaadaysa haadaasaa ku haysa hadduu bahal dalaq iska yidhaa ka hor ilaahay baa kaa celinaya malaa'ig baa kaa celinaysa nicmada ilaahay markaa fiiriso saasa kuugu socotaa indhaha fiir nuurka aa leedahay midka indhaha aan lahayn baa ujeeda waa iska soconaysaa guriga aadaysa waa lugeynaysaa mataqaanaa wax xanuuna ku haya lama arko dad baa tahay aada ku haya nicmo ilaahay baa kugu socota marka nicmadaas inaad ku kadsoonto lama rabo kadsoomid la-aantu maxay tahay marka inaad ka shukri celiso way marka ayadii baa lala hadlay waxaa la leeyahay yaa ayuha alinsaanu insaanow maa gararaka maxaa ku kadiyey birabbika rabbigaaga maxaa kugu kadiyey alkariim deqsiga ahaa oo nicmadiisu had iyo goor ay kugu socotay maxaa kugu kadiyey markaad kadinta inaad sii fahamta aa rabto ilmaha guriga kuu joogo yaryarka oo adiga aa u shaqaynayso mar walba quraacda iyo qadada aa siinayso
haddii aad odag dilaa aad ahayn oo garaacaya aad ahayn waa ma laha maarta odagu nicmo waxaa ku siiya cuno ku siiya uu kuu soo shaqeeya dhib badan kuu soo xiyay maarta wasaakaa cayaaraya waxay ku kalsoon yihiin jacaylka iyo wanaagga au qabto maaragta taas ku kalsoon yihiin علي بن أبي طالب أيها وحول هذا أدونه مركز الباب أيو تاجنا مالك مركز سوى الباب تاجنا أيو يمكن ورهبل وبقى يا مالك مركز شبكي ورهبل شبكي صدق بارو ربا مركز من جوابه على أنتو سوك عين في دي الباب تاجنا والمحاك والعنيق markaasi waxa kaliimi muaamalada wanaagsan oo aan ogahay hadii hadda ila ogaato inaan ku dhageysanay aad waxba yeelay wax dhiba inaad gaarsiinay saasaan ogahay markaasi wuxuu xarba tahay oo iska waan ku xiray inuu muaamalo fiican ku tusinaysa adiga dambaha u dhiibay ruux adiga aaladaha meesha fadhiyo inta u yartikaadi ilmaha hadda hadii dib isku aadiyaan warhebel aad tiraad oo aragta asagoo hoos kaaga jiro haddaad gaalada ka maqaysa yeelay darbaha u dhiibay way dhageysanaysaa daali marka Allah subhanahu wa ta'ala nicmadiisa baa lagu socoto iyadoo nicmadiisa lagu socoto baan shukriga aan aadan xagga u soconaana nicmada wasaaka ay socoto ilaahay dadka dushiisa xilmigiisa uu noo keenay waa iska wadna annaga caasi salaadii muu tukanaya laga yaabo ilaahay ma aaminsana laga yaabo dambi weyn ku dhex jira laga yaabo nicmada ilaahay baa isaga socota oo maca dalika uu caasina uu iska haya waruur baa haya marka uu kalsoon yahay waxaas marka insaanku dhan baa waxa la leeyahay insaanu ma qararka maxaa ku kadiyay rabbika rabbiga ku kadiyay al-kariim diqsiga Allah Allah marka wuxuu u sameeyay baa la sii tilmaamaya wa alladhi alayhi خلقك وأموري الذي الله عزو خلقك وأموري سو نعمة ما الدون كابلو كان محل غير يمك إنك أول بحسه الدون كان أحد كيف كان لو كان يعاد كان لكن هذا وين بكون الله هو المنطقة ذاتك أنت بدل أنت مسلم كحال ينسكر معه وقلب المسكوين والله وعليك وأموري هو كان يعاد كان الذي الله سبحانه خلقك كأوري وفسواك أدي وأنا يسترك سو صاري وحكم دمش سو ما هذا أرك نلقاه كهراء سو صاري أمر لوجه من مقطع أمر قعمه من مقطع أدي وأنا يسترك بإلهي خلقك كأوري فسواك ونمرتي adiga oo dhameystiran ku alla ku soo saaray facadalka wuusan ximnaha nasran bi ilaa kadib suurad kale oo ku soo maray fi ahsan taqwiim wuusan ximnaha hadii kale waxa fahmi lahayd labadaba waa mid ay ka dhaartay oo midna ay tahay nus mitir midna oo mitir ay dadalan tahay dhinaca u dhacay gacmaha fiiri hadii gacan ka dheertahay foolxumo kaliya oo laga carraan hore indhaha fiiri labadooda way isla yihiin labada hadii mid laga dhigi lahaa gacantaan oo kale ka waa nicmo ilaahi way fi ay suurad midii ka oo ma sha ilaahay u dooran kabaka ilaahay iska kursiye ilaahay wuxuu awoodaa fi ahsan taqwiim uu ka dhigay bani aadamka fiiri حوالي سيد إلهي مسميه وسيل لو سميه سيد أو في عوي مهريس ميل أستراض الله اللي اللي بدلا فيه كل أنا كلا هذا دين جنيه وكان توفي في اليوم قليلا ميشان حوالي ميشان دين اللي بدلا ويرفعنا له ورفعنا له لكن هذه من اللي هلا هي سيد أو سميه سنتها سكفي عن من اللي هلا هي حيالي أحسن الخالقين بسميه الله كسميه وعيد وحلا سميسا ايس جنينين اساق حيوان كوا ارقتي كل جوس اوغي
adigana waa lagu taagay maanta kuwa aragta calooshii ku jiitamaya dadka jiistaha baa arkay dhibka ay leedahay markaas halka ku socoto ama maaragtay aad waxaysan tahay imtixaan badanaa la kulmaysa ilaahay wuu ku taagay maaragtay si nidaamsan buu ilaahay ku taagay xibnahaaga xibin ka mida oo la leeyahay meeshaas kuma habboona ha laga wareejiyo laba arko or labada indhood haddii inta la wareejiyo meesha maaragtay meesha madaxaaga gadaalkiisaa la geeyay ka hor xayawaan hadda waa aragtay meesha wax ka fiirinayaan meelahan oo kale inuu uga yaalo waa inay jiraan maxaa soo farxuma insaanka marka ilaahay nicmo badan buu siiyey nicmadaas ku kadsoon yahay marka fi ay suuratin suurad midii ka oo ma shaa uu doono buu rakaba ka kursi suurad bin aadam uu kaaya adiga xayawaanka laakiin si kala laga dhigay kala wala ka jooga kadsoominina nicmada ilaahay oo idinku socoto oo galab iyo subax iyo habeen iyo saacad iyo mar walba aad haysataan ku kadsoominina ruuxa waxa laga yaabaa haddii xoogaa xanuunsado oo nicmada xoogaa qaybo kamida la yareeyo uu ilaahay ku siisanaya soo ma ada arag haddii caloosha la yaadan ilaah caloosha iga fujaa ilaah haddii ku sii daayana orod baa isku taabinaysaa maanta hore ma xusiisanaysid ilaahay haddii dhabarka lagu kala gooyo oo dhabarka xanuun oo dhaqtarka ku soo celiyo haddaad iimaan leedahay waxaa ku waqaysa allo dhabarka iyo toosi haddii xoogaa lagu toosiyana ma xusiisanaysid marka waa kadsoomid wey midaas kala baa leeyahay waa ka jooga kadsoomidaas bal iska badaa inay iska daayaan kadsoomidde tukadibuuna waad beeninaysaan bidiini yowmul qiyaamaha ayaad beeninaysaan bidiin hadda waa yowmul jazaa maalinta dadka la abaalmarinayo maalintaas ayaad beeninaysaan marka allah subxaanahu watacaala laba tilmaamood oo xunxun oo insaanku uu leeyahay markuu noo sheegay laga daali maayo haddana waa lagu wada wax sheegay lagama daalayo labada tilmaamood oo xunxun maxaa weeye mar uu kadsoon yahay baa nicmada ilaahay siinaya uma jeedo hore uu isaga socdaayo markii xoogaa meel xaruntuu hadduu fiican yahay uu leeyahay al xoogaa xarun baa ahayd wuu kadsoon yahay qiyaamadiina wuu beeninaya labada tilmaamood baa insaanka loo soo sheegay mogta ilaahay uu ku wadaa mar walba waa loo sheegayaa waxa uu ku waansamaa loo sheegaya waxaa leeyahay ama kadsoon ama yowmul qiyaamaha diid waxaan ogaataa malaa'ig inay saaran tahay garbahaaga waxaa samaysana la qorayo waxaa la isleeyahay ama wax oon fahmaa wa inna calaykum baa leeyahay korkiina waxaa ahay laxaafidiin malaa'ig wax xifdinaysa acmaashiinay xifdinaysaa wax idinka dhumaya lama arko camalka adiga aad samaynayso mid inaad tiriso lagu dareema jira oo waa tasbiixda oo kale 33 laakiin adkaar haddaa iska akrinayso astaqfirullah iska wadi kartaa laa ilaaha illa allah inaad tiriso maaha inaad inta isku nimaadno aan toban usoo dhiibnana maaha maalinta maxaa yeelay malaa'igtaana kuu xifdinaysaba way jiraan dad tiriya oo yidhaahda 10 usoo dhiiba marka ayaga laftooda inay xoogaa shir ku jiro waxaa qoranaysa ayagoo 10 dhahaya wiilii intuu soo dhawaaday oo maaragtay wuxuu diyaashii markaas yiraahdo iyana soo galay maaragtay waxay dareemeen in waxaan lagu haysto maaragtay bay dareensan yihiin maagta 10 marka maxaa u 10 sanaysa maxaa u diyaashanaysa ilaahay asaga malaa'ik way xifdinaysaa meesha jidada wa inna calaykum laxaafidiin malaa'iktaasna waxaa lagu soo tilmaamaya malaa'ik wax hubinaysa ma hadda haddii qof wax lagu dhiibo waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo hebel baa kugu soo dhiibaa dilwiro waxaad amar iga qaataa gaar qabo maya kiraaman waa malaa'ik oo wanaagsan maaragtay haddana kaatibiin waa qorayaan wax away ka dhumaan baa isdhihi ka dhammaanta malaa'igta oo ka dhumaan maya waa qorayaan waxaana kama dhumaan ayaga يعلمون وحي أوي ما تفعلون وحا فرسان وحي أوي وأعماش أسمين إنسان هذا ما هو صوص من سيكون سبب أوي لكن هو سمين دون تقوى كمدة أوي waxay ugu leeyahay camalka xun oo aad samaynaysan waxay ku gartaan urur badan buu leeyahay camalkaas urur buu leeyahay
camalka midka fiicanna wuxuu leeyahay miski oo kale udug wanaagsan oo miski oo kale buu leeyahay marka saasay ku gartaa malaa'igtu marka saddex goor bay qofka ka tagtaa waxay ka tagtaa marka uu khalaha ku jiro masuusha marka ku jiro oo qaaweyn way ka fogaanaysaa cawradiisaasay ka cararaysaa waxay kaloo ka fogaataa marka ruuxu xaajo gudanayo saxarooda way ka fogaataa marka uu xaaskiisa qofku la kulmayana way u kaaysaa way weydaysaa laakiin yaclamuna ma waa ogyihiin mar walba waxa uu samaynayo ruuxa waa la socda dadka marka مسؤولها أنت يسوون تلان كل شيء سنة أما ينساه فقاعة هذا فآخرها سو يعلمون ما تفعلون ما هو جميع ويؤجي الملائكة وركينا لو شيء ملائكة إلى نلصعت مرة والبوحة سمينا أي أكتاي تذكر قوة وانسومي ما هيو لبضي طريق إلهي يقول تلقى إلهي نار مسمي عيار لا مصر الوقت تطبع لوادرنا إن الله يكاس كلام ولي فربضا الله ينك كلام قوة قلعي مركا لبضي خيبات بالمو شيء تذكر ونفسه إلهي وحي يراضي الأبرار بالإرادة كو إلهي وحي يراضي دين الفجار بالإرادة لبضي الله طريق يقرأ سعودان بالمو شيء إن الأبرار كو بارياركا وفي نعيم بيهانيا نعمي أنا ما أنت قيام وفق باريا بارنود وحوي والروح إلهي وحي هذا الداعي أنا بارن حمرها وحنقول لنا وفق ولد باريا ومركي أترى ساس هي الوعي هذا وحصل مرنا أورث عليه بارن ساس أقول لنا وقت وفق إلهي أتى سنة باريا نين أضيع بأوقع الاستدار دبق الاست marka daarta markuu dhistay wuxuu yiri daarta qaybna uu ka degan yahay qaybna waa u kireysan tahay markaas wuxuu yiri daarta baar waayo ay wiilasha ayada ka baarsan lacagtu waa iska soo aruurinaysa waa keenaysa lacagta qayb baa u kireysan lacagta wuxuu yiri waa ku soo aruurinaysa ay maanta wiilku marmar laga yaabaa inuu yahay lacag ma hayo wada wax kuma hayo ayada ka baarsan baar waayo marka baarinimadu waa qofkii ku adeeco waxa aragtay ilaahay marka baar waxa uu qoraysa wuxuu ku yiraahdo ayasho wuxuu ka rabaa kaarto maxaa ku mudanaysa marka Allah fi naciim nicma ku mudanaysa wa inal fujar ku faajirinta oo ilaahay ka furtay dadka Soomaalida waxay dhaheen faajir Allah ka furtay waay wa inal fujar ku fujata la fi jahim jahima ay kusoo فاسقلوا وحاول عبادة الله يودي الله لكن ما أنت الفجار وحلا وضع كافر كافر وإن الفجار لفي جحيم كل مرة النعمة كسوين المكلين هذا كود أنت الوجود لكن كوار ولا سي وذا يوركود هذا سي وذا بروح إيمان لإليه وإسكرتان وماشان بين هذا إيه سنهاي فهمان بان الوسي وذايا وحال يري يسلونها وحي قلها يوم الدين يسلونها ويقلها جحيمة بيقلها يوم الدين يوم الجزاء مالتها الجزاء جحيم قلها والباب كأفراد والنار تلقى قلب إله ونتصل على قادر الرحمن يسلونها ويقلها جحيمة داس يوم الدين مالنت قيامة ما شاسي قلايا وما هم أيهم ما أهان عنها نارتاس بغائبين قوة كمغنان غيمان الدين يقول هذا ما شاسي لباكا غيمان ولدوه وريقا مارك وريقا على الكلام لكن ما أنت وريق مجرو والله إيمان يا روح والله مشو إيمان يا إلهي ميل لوغو وريق سدو oo looga dhunto oo la isaga aadiyo ma jirto maanta adduunyada haddii dhib kasta u yimaado meel inay isku aadisaa laga yaabo hadda waxaa la yidhi haddii nuclear la rido dad baa waxay qodeen dhulka hoostiisa magaalooyin dhan oo waaweyn oo waxaa lagu sameeyey dhulka hoostiisa lagu sameeyey magaalooyinkaas wax walbay leeyihin baa lagu leeyahay maxaa looga gambanaya mataqaana dhimashadaasaa looga gambanaya
ودي شو اسك إيمان ساي محا أديك قد كم قليل إيمان وهو إيمان ساي قد كم محا وقضان ساي وقفر وإنه سيجرو مر كل قضية من كمين هذا حتى هاي كل عمر قاتنا الغير كل قضية قد كان سوي قضية أم بإن بقضية قيامة وما هم أي وما عنها نار تحقيد بغائبين هو كم غران يا معنا وما أدراك محاكو ويسي ما يوم الدين وحيها يوم الدين حال بسوي القرآن هدي أكو أردت وما أدراك محاكو ويسي وحلا قوضة وحاوي تفخيم وينين ويمرد هدي أعرف سو أردته وقف كله أغارب ويجروا لكن هدي أعوذ ميسي سو ما تبركو كويديو كرا وحاجة ماشي ديكو كجري كورك اسكا أمس ماذا وروها يا سو متركز ورني اسكا أمس ورد ميسي وين هوري مروني أرنتو أنتوا كوا أرد مركب وحلا وينه وما أدراك محاكو ويسي ما يوم الدين نبي محمد بلاليه هذا نوع الوعي ثم مركز كبعد ما أدراك محاكو ويسي ما يوم الدين يوم القيامة يوم الدين وحي ما أنت لسه أول مرة وحي طيب محاكو ويسي والله فسر مركز يوم معلوم لا تملك أي سنهاني نفس النفس لنفس النفس شيئا يسؤولها عنه أي سنوحو ترين معناها وي نفي نفس الله تركه والإنا أطرت إسكداي روحي كو يرغيني روحي كو هدوا أكعرس الماء ووري حاسكا كوحيدا وددك كو ودن بيجري بوقت الباب كامل مركا سو خيرت الماء كو ودن بيجري بوقت صاحبتي waa kasoo kacaysa waalidkii waa kasoo kacaysa dadka kuugu dhawaa ka cararay يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يقول روح عليه هيمانتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أرين ديغي سايا يقول ما أنت أصبناتي وحن اسكدي هاي يقول بابا أنا ما أنت وشاتا أبدا هدو وحشاقان هيميا لنا ماركتي ما أنت يلا اسكدوا بيلا ما تشوفوا الهلا يعني لكن ولي بحيورا قلبي أنه وجرا وأها روحا وحقوله سوى لغمر قمت الدين تروح قوله marka ku jeedo isleeyahay ama ka dhuuma tamaan ruux walba marka ruuxaas wuxuu ku qaban karaa arrimaha adduunyada in isku qabto dhan meel iska jiraan nafsi muliya nabiga wuxuu leeyahay nafsi nabi walba maanta ilaahu maanta aniga ka marka wama yudrika markii la yiraahdo quraanka u fiirso lama sheego وبأرين إلهي كلي أوجي لكن وما أدراك مركي لي هذا وارف السرعة هذا وحالي يوم الدين كوحالي مالين أيسن في النفح وقبن كريوي وارو شيء لكن وما يدريك حتى قرآن كو أركته مالين تاس وما يدريك لليه نبي محمد لما أويسي إلهي محمد هوي سجى مالين تاس حكى وقتها نبي محمد ساعته إني قريبته واتيل الأعمال إني ساعد النوذة يمكن الحكم ما هو النوم ساعد وما الهبل ما راح ينوم صلى الله عليه وسلم إلهي بقى وهو البؤود منك هو الله وقال نبي وحياله إلهي ويسيبه أوجه لكن لو ربوا مرتبة على إلى جالس السؤال ترى هذا نبي وحي البؤود لكن أنا نقول هيك كذا نقوله أو ينتهي وحي إلهي ما وحي إلهي اللي بيقوليه أو فلان عيد والبا أو فلان إلى أمن أو فلان أصلا بسم واحد البوء شيخ هبل واحد البوء عبد السلام بن عبد القادر الجيلاني وحال إلى هذا قد يبحر حتى هذا ملك استأذنه شيخ عبد القادر هو حتى ترى ومغلى يا مالك والتلمان إلهي بقى صنيعه وما يروى بمشي أحد ومشي وكراهه كل جاي الله هذا كان على متك استوى إلهي ومغلى تلمان تعالى مرة خوف من آدم هاسين شيخ في عبوها شيخ تغيب وغاها ما أقرأ إنسان اللي هذا مقرأت أنا إلهي استليه إن شيخ الله سيشوف أسئلة بقرات دير الله دون شو له لكن مو بنت ولقى مرة وحي إلهي ليه خوف من آدم هاسين نحن كل الدنيا كرنا هذا النظام إلهينا هو سميع بن آدم كنا هو سميع وحن كل الدنيا كرنا وحوي لابد ما ويكلا جابين اسكون مستوى ما
adiga xagee wax ka maqli karaa gurigaana kala ka maqli karaa ama inaad telefoon qaadato aalad ku rakibto ku maqli karaa laakiin ilaahay xagee wax ka maqli karaa meel walba ka maqli karaa inta adduunka joogto qof walba hadduu gooni ka dhawaaqo ilaahay wuu ogyahay qof uga darsamaya male annaga laakiin inteedan haddii kula hadasho waa wareeraysa maqalkaaga wuu ku wareerayaa marka maqalka alle iyo kaayagu saasay ku kala duwan yihiin wax ilaahay leeyahay marka qof bini aadam aha siin marka yowma maalin weeye maalinta la leeyahay maxaa ku ogeysiiyey laa tamliku aysan hananin aysan wuxuu qaban karin nafsu naf linafsi naf shay aysan u qaban karin walamru amrku yowmaidin maalintaas lillahi ilaahay baa iskale cid lale lama adduunyada markuu joogay dadku waxaa soo jiray gurigayga carruurtayda ilmahayga milkin oo iska fudud oo aan iska sheegan jirnaa jirto baabuurkayga xoolahayga islaamtayda carruurtayda ninkayga baa jiri jiray mogta maalintaas walamru lilah walamru yowmaidin lilah ruuxu wax sheegan kara lama ah liman ilmulku lyowm buu ilaahay leeyahay markaasaa ruuxu wax sheegan kara la arag mufasiriinta qaarkood waxay sheegaan 40 sana waqti lagu qiyaasay oo kale markii la joogo oo ruuxu wax sheegta la waaya baa lillahi alwaahid alqahaar leeyahay allihii maxaa iskale milkiga waahid alqahaar ka ah iskale cid la leeyahay aysan jirin marka maxaa meesha laga tusinaya milkigan adiga aad sheeganayso guriga iyo carruurtii waxaan aad sheeganayso wax ku meel gaar ah wax iska soo soconaya ma aha ku kalsoomin marka dad aad bari kale tagi doontaan ku kalsoomin dadkaas maxaa laga rabaa xaqooda gudabis laakiin waqtigaaga badayaysa kaa qaadi oo waqtiga ilaahay ku caabudi leeyahay hawo tagi والأمر أمرك يومئذ ما لنتاس لله إلهي سبحانه وتعالى أعلم